annaga waxaan nahay 15 hooyo say gabadhii ugu horeysay oo sheegtay 15 hooyo oo dib gaaray baan nahay markii anaga dibkana gaaray waxaan ku tashanay inaan guryaha ku jirin oo banaanka u soo baxno oo dadkii wacdi gelino oo xabsiyada tagno oo wiilasha dhibaataysan iyo caruuraha maarta xabsiga ku jiro aan la qaybsano waxa ay qabaan baran soo daynay baa jiro intaan lacaga ururinay annaga aan isa saaray committee ahaan $100 ama $200 intaan iska saaroon loo yar u qabanay baran banaanka keenay baa jiro bar aan ku baridino everyday u tagnaa jirto dhowraan soo daynay way jiraan dhowra hadda ku baridino nagu tala jirto inaan soo daynana way jirtaa hooyooyin badan oo la hadalay oo wacdi gelinay oo dhaanay inaad gurigaada iskaga jirta maaha dibku haduu kugu dhaco inaad gurigaada iskaga jirta maaha waa inaad dariskaada ogeysiiso waa inaad soo baxdo waa inaan kuwa kale kuwa hadda dibku gaaray kuwa kale aanan intay dibku gaarin aan maaragtay wax ka dhahno ayaa loo yaan maaragtay u soo baxnay maxay ahaydey dhibaatada ma haysatana annaga lug baan ku leeyahay caruurtaanadana waxbay ku leedahay dawladana waxbay ku leedahay wadanka aan imaanayna dib bay ku leedahay waayo 12 macallin bay ilmaha nagu haystaan TV-ga ay daawadaan waa macallin dibka ayaga haysto maarta guriga macallin gaar weeyo banaanka waxay kala imaadaan guriga oo kuma imaadaan ilmihii marka maskaxdoodii oo yar baa jaan garowday sida awgeed kii marka u fudud ayay iska raacaan marka dhibaato badan ayaa wadankan ilmihiina naga dhacday annagana sidaas iskugu imaanay ilaahay idamkiisana hadda meel fiican buu wax noo marhayaa inaan hooyooyinka iyo caruurta wacdi gelinaan u soo baxnay sidaasaan hadda BBC-da ugu imaanay inaan wadno oon aanan daarin inta aan goolka aan leenayn ka gaadhno ayaan rabnaa dhibaatada haysata ilmahayagana waxa weeyaan oo ku kalifaysa ilmo wanaagsan oo nadiif ah ayaan keensanay qori may wadan wax la cunana mayna wadanin laakiin halkan bay ugu yimaadeen waxa soo dhan inay naga caawiso oo waxa ilmuhu ay sameynayaan ay baabi'iso qoriga baabi'iso si anagu xoolo maanaan ahayn dad bil aadan aan ahayn waxaan u aragnaa hadda xoolo meel ku xareysan oo kulba maalin la soo qabanaya mid oo la qalayo waxa ku kalifaya dhibaatada saasoo adagna oo meesha xungeynaya waa shaqo la'aanta marka in ilmihii shaqo abuur loo sameeyo dhanka iskuulka laftirkeeda waa laga cadaadiyaa ilmaha iyaga maadaama aan hadda chance badan aan haynin kama hadlayo aniga wiilkayga arin ku dhacday hadda maalin dhaweyd marka la ayaa ka hadli doona booliska waan la shirnay lawyer waan la shirnay dad badan baan la shirnay oo u sheegnay dhibaatada ilmaha iyaga haysata ilaa ay hadana wax jawaab kama aan helin marka dawladda sharafka leh ee wadankana keentay waxa ka codsanaynaa inay ilmaha iyagu xoolo ma ahay waa bil aadan aan dhalay oo ku dhibtoonay oo waliba xiriiq xubintaan ku dhalay nolol adag aan ku soo korinay inay wax naga la qabtaan ayaan dawladda sharafta la ka codsanay haddaan nahay hooyo group waxa hankayaga iyo himiladayada aan tiigsanayna uu yahay inaanu ka bedelno bulshadayada sida caruuraha iyaga jeelasha gala iskuulada dilka mar walba gobolkan Alberta ka jira ee caruuraha iyaga mar walba ay ugu yaraan 60 caruur ku dhinteen wadankan saan waxyaabahaas oo dhan uga hortagno oo aan u bedelno ayaanu tiigsanaynaa insha Allah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu hankayagaas iyo himiladayada aan u socono aanu gaarno haddaan nahay hooyo group hooyooyinka Soomaalida ee magaalada Edmonton degan waxa aan aad uga codsanaynaa mid kasta oo magaaladan joogto oo hooyo ah ta dhibtu ku dhacday iyo taana ku dhicinba inay garab nagu siiyaan oo nala soo qayb galaan